الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم أجمعين. بعد دماء ومهدسنتهين دماء وإذ سلامية معلم وناكسن سلامية دومية ماركتي راشي قديقة مدح بنان dastuurka waxaan salaamayaa dhammaan guddiyada dhammaantood xil saaran dib u eegis dastuurka wasaaradda cadaaladda kulankan maanta aqoon-yahanka iyo sharci-yaqaanada loogu ballamiyey la tashiga ugu horeeya inay la qaataan soo jeedinta wax ka beddelka cutubiyada tobnaad ilaa iyo 15aad aad iyo aad marka ugu horeysa horta waa ilaahay mahadiis waxaan uga mahad celinaynaa meesha aan soo gaarnay ayaan uga mahad celinaynaa meesha aan soo gaarnay waa gabagabo maanta waxaan ka hadlaynaa waa cutubiyadii ugu dambeeyey ayaan guda galnay tobnaad iyo 15aad oo dastuurkeennii qabyada ah muddada dheer in halkaas isla soo marayno waxaa iyaguna mahadda iska leh hay-adihii dhammaan ka soo shaqeeyey iyo mar walbana u taagnaa dadweynihii Soomaaliyeed aqoon-yahankii cid walba ka soo qayb qaadatay cid walba oo naga caawisay oo nagu garab taagnayd inaan soo dhammaystirno halkaan maanta soo gaarno marka cutubyadan sida la wada sheegay gudoomiye Farxiyo Muumin ay sheegtay waxa waaye waa cutubyo aad iyo aad runtii muhiim u ah runtii waan uga mahad celinaa cutubyadii siday u kala qaadeen oo wixii guddiyaana cutubyadoodii lagu celiyey oo la gelinayo oo cutubkaas saas loo nidaamiyey cutubiyada kale soo haro aad muhiim ku ahna sida amniga shaqaalaha rayidka ah ee dawladda iyo maaliyadda oo laba kamid ah heshiis ka yaalaan in maanta la dastuureynayo la siiqeynayo aqoon-yahanka iyo sharci-yaqaanada waxaa la idinku hormariyay dabcan sida halka ka muuqata inaad iba furtaan aqoontu inay iba furto qofku waxa uu yaqaano inuu asagu soo bilaabo kadib ayaa dadweynaha caadiga ahaa yaa loo tagi doonaa marka runtii waa isleeyahay dad ehel u ah ayaa la casuumay oo la isugu yeeray waxaan isleeyahay inaad ka gudan doontaan waajibkiina qarannimo iyo kan muwaadinnimo oo aad xaq u leedihiin dastuurkiina inaad wax ka samaysataan oo aayihiina gacantiina ku samaysaan dalkiina inaad ugu adeegtaan aqoontiina waa sax dastuurku waa aayaheena waxa waaye waa waxa aan dowladnimadeena ku dhisayna waaye marka dhammaan in dadweynaha ka wada qayb qaataan idinkuna inaad hormuud u noqotaan ood u soo hormartaan waa arrin yani sax ah oo meesha ay ka bilaabo lahayd ah dadkii ehelka u ahaa horta in loo yeero marka waxaan rajeynayaa inaad waajibkiina ka gudan doontaan oo aad idinkiyo maaragtay iba u furay oo waddo u furay inay dadweynaha inta kaleetana la tashiyadoodii gaari doonto sidoo horeyba ama ha aadan degmooyinka dalka la geeyo amase mataqaanaa dibadda muwaadiniinta jira loo geeyo ama mataqaanaa digitally online dadweynaha Soomaaliyeed loo geeyo marka mas-uuliya laba-laaban ayaa idinka idin saaran insha allahu tacala waxaan rajeynaynaa marka taqaanaa inaad waajibkiina muwaadinnimo ka gudataan maanta qof walba oo ka qayb qaadanaya sidaan hore u sheegi jirnayba waxa uu qayb ka qaadanaya mustaqbalkiisa wuxuu ka qayb qaadanayaa mustaqbalka caruurtiisa wixii lagu dhaqi lahaa ayuu ka qayb qaadanayaa waxaad taagantihiin maalin oo taariikhiya taagantihiin oo ka mid tahay xusuus qorka noloshaada inaad ku dartid inaad maalinkaas ka qayb qaadatay oo aad ku matashay
وأتكون متشي كوا جوجا كليا ما والنول كليا يكون متلي ميسيد كوا دلان دونا تكون متشاه كوا دلان دونا أي تكون متشاه مركا إن واجب كاس قربيه إنه دقتان وعاد حمبارتان هذه دوما سنتين وحرجينا يا إن ميرو iyo wax loo aayo inay ka soo bixi doonaan waxaan rajeynayaa in hore loogu kaco waxaan rajeynayaa safarka nagu dheeraaday iyo masiirada nagu dheeraatay ee dastuurka inay soo gabagabowdo waxaan rajeynayaa siyaasiyiinta Soomaalida sidaas oo kale ayaguna inay ka qayb qaataan dhamaystirka dastuurka sida muwaadiniintu uga qayb qaadanayaan inaan dastuur yeelano waad ogtihiin wax badan waxay ku xiran yihiin siyaasadda marka halkan waxaan uga baaqayaa siyaasiyiinta Soomaaliyeed iyaguna inay waajibkooda ka gutaan ama ha ahaadaan kuwa hadda mandate-ka iyo xelalka haya iyo kuwa mataqaanaa aanan haynin inay ka qayb qaataan dhammaan ummadda Soomaaliyeed inay u ahaato hawl wadareed ama waajib wadareed oo mas'uuliyad la wada qaatay inay wada noqoto ummadda Soomaaliyeed wada xambaarto qof kaliya iyo qolo kaliya ma qaadi karto in la wada qaado dastuurkuna Soomaalida ayaa iska wada leh kuwa nool iyo kuwa soo socdaba aad iyo aad ma santiin guulay ay rajaynayaa shirkuna waa noo furan yahay. Wassalaamu calaykum warahmatullahi wabarakatuh.